ogeysiis iyo wargelin muhiim ah. waxaa Care Hospital Qardho maalmaha Khamiista iyo Jimcaha ka howlgalaya haddii aan la idmo Dr. Cabdiweli Tubaako oo ku taqasusay xanuunada wadnaha kana yimid dalka Bangladesh. sidoo kale waxaa 25 bisha haddii aan la idmo Care Hospital ka shaqo bilaabi doona Dr. Axmed Xasan Galool. sidoo kale Care Hospital waxaa lagu sameeyay dib u habeyn ballaaran, waxaa fariista dhaqaatiir kala duwan. sidoo kale waxaa Care ka helaysaan dawooyin tayo leh iyo shaybaar casri ah. hadda waa kan maamulaha Care Hospital Axmed Maxamuud Bile oo sharaxaya dhaqaatiirta ka howlgala Care Hospital iyo adeegyo kala duwan ay soo kordhiyeen, isagoo xusay in Dr. Cabdiweli Tubaako maalmaha Khamiista iyo Jimcaha uu si joogto ah uga howlgalayo. maamulaha isbitaalka Care Specialist Hospital haddaan ka warbixiyo adeegyada isbitaalku bixiyo waxa kamid ah adeegyo kala duwan buu bixiyaa oo si joogto ah u baxa habeen iyo maalin ah. dhakhtarka cudurrada guud ayaa fariista, ka dumarka ayaa fariista, dhakhtarka cudurrada guud iyo maqaarka ayaa fariista, iyo dhakhtarka lafaha. sidoo kale Khamiista iyo Jimcaha wax si joogto ah uga shaqo gala ama uga howlgala Dr. Cabdiweli Xasan Tubaako oo ku taqasusay cudurrada ku dhaca wadnaha, dhiigkarka iyo macaanka cholesterolka. dhakhtarkaas oo Khamiis iyo Jimcaha si joogto ah u fariista Care Specialist Hospital ayaan u sheegaynaa ummadda reer Karkaar iyo degmada Qardhoba, guud ahaan degmada Qardho baan u sheegaynaa. sidoo kale 25 bisha waxa imaan doona dhakhtarka neerfaha. sidoo kale waxa isbitaalka imaan doona bisha maalinta ay tahay 25 bisha 6 2022 Dr. Axmed Xasan Galool dhakhtar neerfaha ah loo aadi jiray Muqdisho iyo ka fog bal loo aadi jiray. guud ahaan haddaan ka warbixiyo hadalkay ku soo koobo isbitaalku 24 saac waa shaqeeyaa, habeenkii waa shaqeeyaa, habeenkii oo dhan waa open. wuxuu leeyahay qaybtii dhalmada, wuxuu leeyahay qaybtii dhalmada oo free ayuu leeyahay. waxa kale uu leeyahay ambulance free ah oo dadka ay patientka ugu tagaysa xaafad kasta iyo guri kasta ugu tagaysa.